maanta waxaynu soo xidhanaa tababarkeennii muddada 4 cisho ah inoogu socday magaalada Hargeysa gobolka Maroodijeex oo ay ka soo qayb galeen gobolada galbeedku. Tababarku laba qaybood buu ahaa. Qayb waxa lagu qabanayay Togdheer oo waxa ka soo qayb galay gobolada bariga. Qaybna waxa lagu qabanayay Maroodijeex oo waxa ka soo qayb galay gobolada galbeedka. Runtii tababarkan ujeedadu daarana waxay ahayd in kormeerayaasha wixii aqoon kordhina la siiyo oo kor loogu qaado. Aqoonta aad barateen oo halkan la idinku tababarayay waxa weeye hadhow inaad markaad noqotaan ku shaqaysaan ayaa la idinka doonayaa oo aad sideedii uga howlgashaan. Kormeerkan tirada batay ee gobol walba ama gudoomiyuu qoraya ama si kaleba ku soo galaya iyagana hawshoodii waanu soo gabagabaynay goboladii bariga waanu dhamaynay. Maroodijeex iyo Gabiley baa noo hadhay kuwaana iminka wiigan dambe aan iyagana iyagoo kooban aan soo saari doonaa. Dabadeedna kormeerkii hal macallin uu iskuul ku qornaanayay uu iskuulka maada uu garanayo uu garanaynba uu soo qiimeynayay meeshii way ka baxaysaa. Waxa la sameyn doonaa kormeerayaal ku wada wanaagsan subjectigo israaca iskuulkii oo ogeyn ka duldega dabadeedna soo ogaada xaqiiqda meesha taala. marka insha Allah nidaamkii hore wax badan baynu ka bedeli doonaa. Qaydina aad baa loo dhisi doonaa. Kuwii ka faa'iideeyo oo ardaydii iyo macallimiintii iskuulada aad ku noqonayseen ee soo kormeerayseen ee soo eegayseen tayadoodana kuwii uga faa'iideeya oo runtii si fiican ugu amal fala ayuu rajaynaynaa noqotaan. runtii anigoo ku hadlaya magaca tababarayaasha ama trainerska waxyaalahan halkan ka barnay kormeerayaasha waxa kamid ah iyadoo aynu ognahay kormeerayaasha intaas oo seminar ay hore u soo qaateen training kan waa refreshment dub ma garanaysaa kor loogu qaadayo sidii ay u noqon lahaayeen kormeerayaal hawshooda guta. waxyaalahan barray waxa kamid ah waa maxay kormeer noocyada kormeerka waajibaadka iyo rooliska ay leeyihiin kormeerayaashu muhiimadda ay leedahay waxbarista ama magaranaysaa kormeerka iyo magaranaysaa uu leeyahay dugsiyada xagga waxbarashada markaynu ka eegayno. waxa kale oo aanu baray buugaag laba buug oo 5 tusa ah oo 2003 la sameeyay. labada buug waxa weeye educatorska loo isticmaalo waxbarashada waxa iyo mid requirement oo waxyaalaha laga doonayo minimum standardka laga doonayo waxbarashada oo 13 tusay. Haddii 13 tusay mid kamid ah la waayo ay noqonayso in dugsigaas uu ka hooseeyo heerkii caadiga ah ee laga rabay waxbarashada caadiga ah loogu talagalay. iyo labada buug oo ayaguna 5 indikator oo ka koobaad oo ahaa maamulka kalabaadna uu ahaa waxbaristii iyo magaranaysaa ardayda ka saddexaadna oo ahaa qalabkii loo isticmaalayay waxbarashada ee teacher materialkii. qodobka afraad oo ahaa deegaankii. ka shanaadna oo ahaa community relation oo xiriirkii ka dhaxeeyay bulshada iyo magaranaysaa 5 indicator. marka aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ka qaybgalayaasha. cilmigu ma dhamaado qofku isaga dhamaado aqoontu ma dhamaato. waxaa taqaanay marka lagu sheegana wixii hore taqaanay dhaska fuulay ka masaxdaa waxa taqaanay lagu sheegaa dhaska fuulay ka masaxdaa ugu soo cusboonaysiisaa. dhammaanteen mutacallimiin baynu nahay. kormeerka maanta waxaanu ka faa'iidnay kormeer marka la maqasho kormeer waxa weeyaan waa inuu ka aqoon bataa maamulaha iskuulka waa inuu ka aqoon bataa macallimiinta iskuulka oo intaba uu ka aqoon badan yahay uu iyaga kormeeri karaya ma aha kormeerku midaan aqoon lahayn ama aan ka aqoon badnayn macallinka iyo maamulka iyo ardayda toona ma aha. way jiraan maanta kuwa sidaasi way jiraan laakiin asal ahaanba kormeerku waa nin aqoon leh oo ka xirfad badan oo ka waaya aragsan oo kormeeri kara maamulka iskuulka kormeeri kara macallimiinta iskuulka wax ka dhigta maado maaha kormeerku inuu maado kale yaqaano maado eega maaha. inta maadada lagu dhigo dugsiyada waa inta macallinka kormeerkaasi aqoon leeyahay yaqaana qasbiyan marka waa caynka ilaa ka la helana kormeerku cayn noqon maayo. halka maanta haddaba waxay macallimiintu wax loo dhigaysay na bareen oo la u kordhiyeen
in kormeerku yahay wadnaha waxbarashada ee macallinkii iyo ardaygii ku dhex jira ee macallinkii hogaaminaya ee macallinkii wuxuu sheegaya ee macallinkii saxaya inuu yahay kormeerku ayay nimankay macallimiintu wax noo dhegaysay ay noo sheegeen oo na bareen inkastoo hore aan naqaay anigu laakiin haddana intayada badan kaa jirtay maanaan aqoonin saanahay waxaan lahayn iskuulkeen lacag badan laygu qoran ma lahaadee intagaa tii maanta in laga baxaa habboon haddana gacan libaax baa lacag badan laqataa kaa igu qoran kii laygu qoran lacag bun doonayo waabaan dhalay maxaan lacag ku furaya waxa weeyaan maanta tiimo taagna waxay noo sheegeen nimankaa wax noo baryay waxay noo sheegeen in maanta taasi meesha joogin ee ay taallo maanta loo baahan yahay kormeer dhab ah oo sax ah oo daacad ah oo cadaali ah oo aqoona leh arrintan iskugu nimi walaalayaal ee mas-uuliyaddan ilaahay na saaray ee uu yidhi waqifuuhum innahum mas-uuluun maalinta qiyaamaha qof walba xilkii loo egmaday ayaa la weydiinaya loodhanaya markuu halkii lagu aasi ka soo baxo bartaha ka dhaqaaqin wixii lagu dhiibey ayaa lagu weydiinaya xilkaa aynu iskugu nimi maanta ee ummadda laynoo egmaday allah inoo fududeeyo kuwa ilaahay ugu dhowaadana allah inaga dhigo jasaakum allah khayr ilaahay baan ugu shukriyeynaa marka allah inoo aqbalo الله إنه أقبله الله إنه أقبله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا دعوناك كما أمرتنا يا الله أستجيب كما وعدتنا يا الله إنك لا تخلف يا الله صلى الله عليه وسلم لما أنت واحد كل سلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan dareemayaa qiimaha uu leeyahay kormeerku ama waaxda kormeerku inay tahay halka isku xidho wasaaradda waxbarashada ama gobolada ka timaadeen heer gobol iyo iskuuladii iyo ardaydii joogtay iyo macallimiintii dhigaysay iyo xaalad ay wax ku baranayeen manhajka la barayay loo barayay baraha wax baraya inuu diyaarsanaayo macallin diyaarsan ahaa oo performance-ga macallinka laga doonayay uu buuxiyo lahaa iyo sidoo kale inuu qaatay tababaradii la soo baray ee ahaa wax loo yaqaano monitoring supervision kamid qaadanayseen oo kow ka tahay teaching way of teaching ki kamid tahay wax loo dhigayo ay laba ka tahay lesson plan-kii soo diyaarsanayo scheme work-kii soo galayo oo qofku in manhajkii ama jabbuugii u dhigayay ama course-kii u dhigayay inuu ku saleeyay xiisadihiisii iyo saacadii kala ku dhigayay iyo bishii ama saddexdii biloodba taasi waxay keenaysaa waxa hawsha geli karaya oo gudan karaya waa dad aqoontiile weey waa dad la soo tababaray waa dad xirfadii iyo aqoontii macallinimo soo barbaaray oo qayb ka noqday isla markaana awooddoodii helay waxaan ogahay awoodaha aad leedihiin in kasta ha leekaadaan anaan kuma lihidin waxaan dareemayaa minkaaniyaad badan ood wasaarad ahaan naga mudnaydeen ood gobol ahaan xaq u lahaydeen inay idinka maqan yihiin oo gaadiidkii koow ka yahay laba ay ka mid tahay tasafkii aad ku shaqayn lahaydeen saddex ay ka mid tahay tababarada noocan oo kale ah afarna ay ka mid tahay dadkaad u shaqaynaysaan idaan iskaarinba waxaan se idiin sheegayaa inaad garataan tababarka marka qaateen awoodda aad leedihiin fariintan idinkaga tegaya waxaa weeye mas-uul baynu wadnahay dhammaanteen marxaladda maantaynu joogno waxaad jirtay waktaynu ka liidanay oo inaan iskuul haysan oo inaan macallimiinteennu waxba haysan wax lagu shaqaynaya aanan jirin oo tamaashiir geedka dadka lagu xidho jiray maanta waynu ka duwannahayoo bii'ad ka duwan baynu joognaa haddana waxaan dareemayaa laxajeclada maalintaa jirtay inay maanta jirin waxay la tahay oo runtii muuqata inay meesha ka baxday waddaniyaddii dhab tahay waddaniyaddu waa tayna faraysa in qofku waajibkiisa uu guto oo si waddaniyadeed loo guto oo wax kastoo dana gaara uu ka horreysiiyo danta iyo maslaxadda qaranka waayo haddii danta qaranku dayacmatana waxa dayacmaya ummaddaynu gacanta ku hayno wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa ilaa 400 kun oo arday bay gacanta ku haysaa macallinkiisiyo baahan ardaygii oo awoodda ugu badan madaxweynuhu geliyey oo sanad walba buugaagtiisa qorshayaasha madaxweynuhu ugu daro ardayguna buug waayin ardaygu inuu helo waxbarashadiisii ardaygu inuu helo mas-uuliyaddiina saarnad inaan u gudan karno cidda markaa odhanaysa ardaygaa buugtiina may gaadhin macallimiin ku filanna ma haystaan
waxbarashadiina lama soo barin haddana imtixaanka laga qaadayo cidda warbixintaanu ka doonayna waa kormeerka weyn dembiga ugu weyn cidda qaadanaysa waa kormeerka weyn ilaahayna uu kugula xisaabtamaya mas-uuliyaddaad ummadda u haysan waad kula xisaabtamaya inaad shaqadiina gudataan annaguna diyaar waxaanu nahay inaan abaal marino shaqadiina idinku ilaalino qof walba mas-uuliyaddaada gudo aad baad mahadsantihiin